xafladda ay ku qalin jibinayeen 27 arday oo dhameysatay kulliyadda shareecada ee jaamacadda Bariga Afrika faraceeda degmada Goldogob ayaa lagu qabtay isla degmadaasi. Warbixinta warkan waxaa si anba qaadaya wariyahayaga Cabdullaahi Cabdikariin Takar oo Goldogob ka soo waramay. xafladda ay ku qalin jibinayeen 27 arday oo dhameysay kulliyadda shareecada iyo kulliyadda waxbarashada ee jaamacadda Bariga Afrika qaybteeda degmada Goldogob ayaa lagu qabtay xarunta jaamacadda. waxaana ka soo qayb galay gudoomiyaha waxbarashada gobolka Mudug, gudoomiye ku-xigeenka gobolka, maamulka degmada, waalidiinta ardayda qalin jabisay, maamulka iyo macallimiinta jaamacadda, culimada degmada iyo marti sharaf kala duwan. madaxa jaamacadda Bariga Afrika qaybteeda degmada Goldogob, Sheekh Muuse Maxamuud Takar, ayaa ka warbixiyay taariikhda aasaaskii jaamacadda iyo miraha laga helay. jaamacadda Bariga Afrika runtii waxa ay aasaasantay sanadkii 2011 ayay aasaasantay. baahi baana keentay in la aasaaso. baahida keentay waxay ahayd ardayda ka soo qalin jabinaysay iskuulada iyo jaamacadaha maxaan ku raraa macaahidda ayaa waxay u baahdeen in daraasadooda sii wadaan. suuragalna ma yahay in la aadaan meel kale oo fog kulligood inay wada aadaan. qofkii tabar heli kara meel kale inuu aado macquul bay ahayd, laakiin dadku ma wada haystaan tabarta iyada ah. oo caawa dafcadda ka baxaysa jaamacadda ay tahay dafcaddii afraad ay tahay. dafcaddii afraad ayaa ka qalin jabinaysa. runtii dafcadii hore ee ka horeeyay dafcadii koowaad iyo kii labaad iyo tii saddexaadba waxay dib ugu noqdeen deegaankooda oo waxay ka qayb qaateen cilmigii ay soo barteen, waxay dib u geliyeen deegaankooda. gudoomiyaha boorka jaamacadda Bariga Afrika qaybteeda degmada Goldogob, Sheekh Mahad Cabdullaahi ayaa bulshada ugu baaqay in la garab istaago jaamacadda. waxaa in badan laga faa'iideystay oo madaarista iyo macaahidda iyo goobaha waxbarashada dhiga ardadii ka baxday jaamacadda. hase ahaatee jaamacaddu waxay ku socotaa si mutawaadic ah ayay ku socotaa. waxa keenaya inay mutawaadic ku socoto. hawshaani waa hawshii dawladuhu qaban jireen. hawshaani waa hawshii ay in badan dadka ganacsatada ay ka qayb gali jireen. hawshani marka waxay u baahan tahay in la isugu tago ayay u baahan tahay. jaamacadda waxay leedahay deegaan iyadu ay leedahay, ilaahay mahadiis. laakiin deegaanku masjid ma leh, hool weyn oo lagu shiro ma leh. waa joogaan dadkii khayrka qabay, waa joogaan ganacsatadii, waa joogaan saa'iriintii, waa joogaan maamulkii. waxaan leenahay anoo ku hadlahaya magacayga iyo magaca boodhka, jaamacaddu waxay u marti tahay waxqabadkiina. gudoomiyaha waxbarashada gobolka Mudug Axmed Huruuse Xaashi ayaa ardayda qalin jabisay ugu baaqay in gudoonka waxbarashada ay ka caawiyaan tartamo aqooneed dhawaan ka qabsoomi doona degmada. waxaan rabaa in ardaydan ka codsado qalin jabinaysa iyo macallimiinta iyo maamuladaba inay wasaaradda waxbarashada gudoonka gobolka iyo kan degmadaba ay ka caawiyaan tartan aan rajaynayno inuu ka dhaco December degmadeena Goldogob oo aan ugu talagalsanahay inaan waxbarashada kubcino, inaan caruurteena ku jeeda kubadda iyo waxyaabaha kale inaan ku soo jeedino iskuulkii, inaan ku jeedino walahaanshaheedii. waxaas haddii idinka aad ka shaqaysaan oo idinku aad qabataan waan aaminsanahay waana ognahay waa qaban kartaan. Cabdinuur Faarax Ashkar oo kamid ah ardayda qalin jabinaysa ayaa ku bogaadiyay ardayda degmada wax ka barta in magaaladooda ay jaamacadda ka dhigtaan. inaan u sheego waalidiinta iyo ardaydaba in jaamacaddeena si gaar ah hoos baa loo fiiriyaa dhici ka dhah oo inuu dhaho qofka Goldogob baan kaga baxay secondary iyo maxadkii laakiin jaamacad ma ka dhiganayo. waxaan leeyahay jaanisiyada aan hore u sheegayna way jiraan, waa haysanaa. dhibaatooyinka aan sheegnayna waa ka badbaadnay alxamdulillah. waalidiinta iyo ardaydaba waxaan ku soo dhaweynaynaa jaamacaddeena Bariga Afrika faraca Goldogob. Cabdullaahi Cabdikariin Takar, SBC degmada Goldogob.